waraysigan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar aan ku yeelanay xafiiskiisa oo aan wax kaga weydiinay arrinta uu beega weyn ee qalbi dhagax oo deegaanka looga yaqaan qalbi dhariqa iyo dadka wada aragtiyada ciriiriyan ee ka hadlaya saxaafadaha ee majra habaabinaya dambiyada qalbi dhariq uu ka galay dalkiisa Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in Cabdi Kariin uu yahay nin u dhashay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dambiye ka galay dalkan uu u dhashay ee Itoobiya isla markaana arrintiisu ay u taalo dastuurka dalka waxaan doonayaa ka hadlo dhowr qodob oo ku saabsan ninka ama xaaladda Cabdi Kariin xaaladda Cabdi Kariin laga hadlayo horta marka baad waxay isweydiinayaan Cabdi Kariin waayo oo kuma Cabdi Kariin waa nin dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya u dhashay booliska ugu horeeyay deegaanka kamid ah kadib waxa weeyaan dhibaato uu sameeyay iyo dil iyo dhac iyo kursi iyo waxa weeyaan dhibaato uu sameeyay duurka la galay oo ururka nabadiidka uu ka mid noqday dadkana dhibaateeyay gaar ahaan gobolka Doolo uu dhashay gaar ahaan degmada Wardheer iyo degmada waxa weeyaan Helow Danood deegaanka Qoraxay Jarar iyo guud ahaan deegaanka dhanba dhibaatooyin badan nabad dhibaatooyin badan ka geystay ilaa iyo waxa weeyaan Shabeelle meelna dhibaato ka geystay ma jirto arrintiisa iyo waxa weeyaan maxaan ku rahaa xaaladiisuna waxay u taalaa dastuurka dalka Itoobiya iyo hay'adaha nabadgelyada iyo dawladda mas'uuliyiinta sare ee dalka Itoobiya cidda ay khusayso dastuurka Itoobiya nin hoos jooga weeyaan dawlad dastuur leh oo waxa weeye taqaanaa sharci leh oo sharciga caalamiga iyo maxaan ku rahaa maxbuuska iyo kan dalka iyo ka deegaanka intaba mid dawladdu waxa weeye taqaanaa ilaalinayso oo waxa weeye maxaan ku rahaa nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci uu ka jiro ayuu Cabdi Kariin ma taqaanaa dastuurkaas hoos yaala iyadana u taala talaabooyinkii ma taqaanaa markaas waxa weeyaan dawladdu ay ka qaadanayso dhanka kale madaxweynaha ayaa ka hadlay dadka siyaabaha khaldan uga hadlaya arrinta Cabdi Kariin qalbi dhagax isagoo sheegay inay wataan dana qarsoon oo u socda meel kale oo ay ujeedadoodu tahay inay soo celiyaan dhiig miiratadii al-shabaab iyo ubo dadka hadda siyaabo kala gedsan bay uga hadlayaan dad fikirro khaldan bay ku hadlayaan oo tusalahan Cabdi Kariin bay ka hadlayaan marka waxa isweydiinaya Cabdi Kariin cidda ka hadlaysa ee hadda maxaan ku waxa weeyaan ayaamahan dambe ama diaspora ama Soomaaliya ha fadhiya dadka ka hadlaya horta waxa weeyaan Cabdi Kariin bay u danaynayaan baa taala sayf oo Cabdi Kariin way ka xun yihiin in wax la yeelo maya hidden agenda fara badan baa jira hidden agenda fara badan oo iskor saaran baa jira qaar waxay rabaan ma taqaanaa kursiga ku doonayaan oo dawladda Soomaaliya ma taqaanaa iyo waxa weeyaan nidaam wala isgaranaya wax iska cad weeyaan politically ka halkaas inuu wada xoga soo dhaxbaxo ikiraadinayaan oo iska cadahay marka waxa weeye taqaanaa oohin bilaash ma taqaanaa waxba ka jirin ma taqaanaa oohinaya midna waa mid dawladda Soomaaliya iyo Amisom iyo Itoobiya iyo shacabka Soomaaliya waxa weeyaan halgankii ay galeen ee al-shabaab ku tirtireen waxa weeye al-shabaab ku weeqantay ee hadda mas'uuliyiinteedii ugu sareysay isku soo dhiibayso waxa weeye talaabada laga qaaday qorshe si al-shabaab loo soo celiyo al-shabaab baa loo ooyay Cabdi Kariin inta loo ooyay qaar badan al-shabaab loo ooyay qaar waxa weeyaan dawladahan waxa weeyaan argagixisada sida Eritrea iyo kuwa la midkii hadda waxa weeye taqaanaa waxa weeyaan yaani maxaan ku raayay dalka Itoobiya ka xun horumarkiisa waxa weeyaan yaa ugu soo dhumanaya kuwaas ma taqaanaa qorshayaal ay bixinayaan weeyaan dadka qaarkood oo iyagu tan nooca u hadlaya weeyaan madaxweynaha ayaa intaas ku daray in cidda dhahaysa Cabdi Kariin 77kii ayuu dhaawacmay ay uga haboon tahay inay ka hadlaan kuwa maalin kasta ku dhaawacmaya Soomaaliya iyo dhibaatada al-shabaab Cabdi Kariin 77kii uu dhaawacmay 77kii uu dhaawacay ninka dhahaya waxa isku diinay in markaa muwaadin oo 77 ku dhaawacmay ayaa ka xumahay uu leeyahay miya hadduu taaleeyahay shalay ninka ma taqaanaa dhaawacmay ee al-shabaab ku dhaawacmay ee ciidanka qaranka ee Soomaaliya hadda jooga ciidanka qaranka ama hay'adaha kala gedisan ee dawladda Soomaaliya ee hadda al-shabaab ku dhaawacday kaamu ka hadlo ma taqaanaa wax loo qabto kaamu ka hadlo dhibaatadiisa ma taqaanaa qoysaskiisa isagu way rafaadayaan kaasina ka hadlay shacabka al-shabaab ku dhintay Cabdi Kariin uu leeyahay kuwa dhintay maalin kasta qaraxa la daba taagan yahay maalin qudha isagoo laga mudaharaadi lama arkin su'aasha doonayna inaan weydiiyo caalamka iyo dadka iyo ciidan hadlaysi waxaysan waxa weeye war Cabdi Kariin marka uu mudaharaadaysa nin baa la dhiibay Cabdi Kariin waa hal shakhsi weeyaan waxa weeye dawladda Itoobiya oo waxa weeye taqaanaa 2000 sano Itoobiya soo dastuuriya sharci ka jira ayaa jira uu ka nasiib fiican yahay kuwii horaan leeyahay waxa weeye taqaanaa nabad geliyo ku jooga wax kuma taqaanaa ku dhicina ma jirto sana dastuurkaas wuxuu siiyay muleey
marka maxaa loo waayay dad al-shabaab dadkii leesay ka mudaharaaday basu'aal marka mudaharaaday oo taasoo soo diinaya maxaa loo mudaharaaday weyday inaad dawladii Soomaaliya la yaqaanay waxa weeye maxaan ku rahaayay waxa weeyaan horumar ka shaqeynaysa Soomaaliga keentay af Soomaaliga qortay waxa weeye taqaanaa yani Soomaalinimada ma taqaanaa ay abuurtay waxa weeye maxaan ku rahaa horumarka lagu yaqaanay dawladii nooca ah baa naga luntay waan soo ceshanayna go'aan maxay u qaadan weeyeen oo taagu mudaharad weeyeen inay maxaan ku rahay dawladda soddon dawlad ba kor fadhiya oo waxa weeye taqaanaa ama Soomaaliya ya kor fadhiya taa marka inta ka ficil ka qaataan inay iyagu ismaamulaan oo dawladda taqaanaa noqdaan oo waxa weeyaan madaxdooda ka dambeeyaan oo is ixtiraamaan madaxduna ay iyaga ixtiraamta la ixtiraamta saasay ixtiraam ku leeyahay laakiin taana ima dhibayso oo adduunyada faraha badan ee kor fadhida Soomaaliya ninka Soomaaliga waxa uu taqaan Soomaaliya u dhashay inuu waxa weeye maxaan ku rahaay taa intuu ka ficil tabo uu dawlad waxa weeyaan isagu maamulo oo dawlad waxa weeye maxaan ku rahaa markaas iyadu kala dambeynaysa oo muwaadinimo ah inuu helo inuu mudaharado waxa weeye maxaan ku rahaay al-shabaab baa u diidanay al-shabaab iska dulqaado qabyaalad baa u diidanay qabyaalad iska dulqaado taas baa inuu ka mudaharado abdikariim maahay ma taqaanaa inuu ka mudaharado marka taa waxaan leeyahay dib iskugu noqdo waxa weeyaan waxay ka dhiganahay dadkii al-shabaab leeynayay Soomaaliya ku dhintay ardada hay qalin jabinay waxa weeye maxaan ku rahaa ardada iyagoo maanta soo qalin jabiyay oo jaamacadda ka soo qalin jabiyay dadka waxa weeye mataqaanaa safarka ee soo galay iyo safarka baxaya iyo dadka muqaaxida fadhiya hoteelada fadhiya ee socda dadka masaakiinta maalin kasta la leeynaya maxay diin dadku weeyday oo mudaharad weeyday ee Muqdisho lagu leenayo ee Soomaaliya lagu leenayo iyagoo tukanaya la leenayo ee masaajidada lagu leenayo ee la dhibaateynayo ee Soomaalida taa kama naxaysan miya kuwa dibadda jooga la hadlaya kuwa gudaha joogana waa la hadlaya taasina ka naxdaan oo ka hadashaan baa laakiin maalin kasta dad baa lagu laaya Soomaaliya qarax baa maalin kasta ka dhaca taa ma taqaanaa mar ku dhayso laga mudaharaaday oo laga hadlay ma taqaanaa taas ma xaq baa mise cadaalad ninka muwaadinka ee aqliga aad ku garatay inaad tiraahdo Cabdikariim baa ma taqaanaa ka mudaharaaday taa maxaad ugu orkeeday indhaha taa ku aragtay dhawaatan ku maqlayso maxaad u qaadanayay tan baa taala waa dib taqaanaa fikir sax ah oo saliim ah leedahay madaxweynaha ayaa ku tilmaamay dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya ku tilmaamaya Soomaali galbeed ay yihiin dadka eegaya goobta ay joogaan oo ah Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho dadka dhaaya Soomaali galbeed waa deegaanka Soomaalidu waxa weeyaan Soomaali weeyaan laakiin waa dad Itoobiyana waana deegaanka Soomaalida Itoobiya oo waxa weeyaan marka aad sabaad joogto koonfur yani ma taqaanaa koonfur bari ama bariga Itoobiya nahay haddaad Muqdisho naga soo eegto laakiin tii Soomaali galbeed waa dhig marka taas waa fikirkii shuuciga horta Soomaali galbeed marka la Muqdisho fadhida ama Soomaaliya joogta laakiin anaga dii waxa weeye maxaan ku raacay sabab marka aad joogto inaad soo fiirisaa fiicano waxa weeye ma taqaanaa xaqan nahay marka waxay noqonaysaa bariga Itoobiya koonfur bari Itoobiya ama bariga Itoobiya nahay dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee ku taala qaaradahan ama qaradahan waa koonfur bari Itoobiya ayaa leeyahay laakiin hadda tira Soomaali galbeed oo marka ma taqaanaa Soomaaliya joogtay ka dhiganta taana ma taqaanaa in saas loo fahmo waa muhiim dhanka kale madaxweynaha ayaa sheegay in xiriirka iyo daris wanaaga ka dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliya iyo waliba heshiisyo hore oo ay wada galeen madaxdii hore ee dawladda Soomaaliya oo ay kamid yihiin wasiir Mahad Maxamed Salaad wasiir Maxamed Mursal Jaamac Geelle madaxweynihii galmudug ee xilligaasi mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo dawladda Itoobiya waa dad walaala oo jaara Itoobiya marka ma taqaanaa hadda Itoobiya caydana dad Soomaaliya cayday hortoodo hadda Itoobiya wax ka sheegtay dad Soomaaliya wax ka sheegtay taana ma taqaanaa ilo ogaada loo baahan yahay Itoobiya qoomiyada farbada isku tagay qoomiya Itoobiya leeyahay marka Itoobiya Soomaaliya xad dheer bay leeyihiin xad dheer ay leeyihiin in 2,000 kilometer ka badan xadka dheer iskaashi u baahan yahay labada dhinacba nabad wuxuu ku karaa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya iska kaashada iskaashiguna mutual interest weeyaan labada dhinac inuu ku yimaado muhiim hal dhinac inuu ku yimaado ma Soomaaliya Itoobiya way taageertaa ma taqaanaa Soomaaliya intay karayso way ku dhimatay ciidankeedii baa ma taqaanaa ku dhintay waxa weeye maxaan ku raayay codsigii Soomaaliya ka jawaabiso iyo al-shabaab kala halgantay waxa weeyaan maxaan ku raayay dadka Soomaaliya ee qaxootiga ku jooga ee wanaaga halkan jooga yaa si fiican ma taqaanaa ugu nool waxa weeyaan way u baxsadeen
marka dawladda Soomaaliya hadda jirta Ra'iisul Khayre iyo madaxweyne Farmaajo de shalay ahayd markii Ra'iisul dalka Ethiopia ay waxa weeye ka codsanayeen 114 dhalinyaro oo kuwa dambi Soomaaliya ka soo galay iyo kuwa Ethiopia ka galay isugu jira oo Ra'iisul dalka Ethiopia mudane Xalimaram Dhisaale uu amar ku bixiyay in farta laga saaro taa marka waa loo soo cabeeyay waxa la lahaa Ra'iisul Khayre iyo madaxweyne Farmaajo shalay waa lagu amaanay 114 dambiilayaal oo kuwa iyaga dambi ka soo galay kuwa anaga mataqaanaa galay isugu jira oo dawladda Ethiopia ka galay iyo kuwa waxa weeye marka taa waa lagu amaanay taasi waxa laga jawaabay wuxuu ahaa xiriirkii labada dawladood u dhaxeeyay ee hore loo saxay ee uu saxay waxa weeye mahad u saxay ee uu wasiir geela saxay ee uu maxaa ku raad madaxweyne Cabdikariim saxay heshiisyadaas ay ahaayeen waxa weeyaan laga jawaabay hadii ka lagu amaanay waxa weeye maxaan ku rahay in la yiraahdo sabab Cabdikariim ku dhaawacmay dawmaha kuwa hadda dhaawacmay la daryeelan leeyahay markaa geesta kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa weydiiyay xildhibaanada dalka Soomaaliya su'aal ah miyaysan ka habboonayn in mooshin laga soo saaro dhibaatada al-shabaab inta laga doodayo arrinta Cabdikariim su'aal baan weydiinayaa xildhibaanada Soomaaliya lafteeda al-shabaab waxa weeyaan maxaan ku rahaa mooshin ma ka soo saartaan al-shabaab in maxaan ku rahay waxa weey inta xildhibaanada ka hadlay hadda Cabdikariim aynaad al-shabaab waxa weeyaan in la qabto oo la dagaalamo mooshin ka soo saartay dhibaatada al-shabaab ay ku hayso dawlad la'aanta Soomaaliya iyo horumar la'aanta shacabka Soomaaliya inaad ka hadashay taalo ka hadlay oo cid mataqaanay u raadinaya ama u xaabo urursanaya lama arkin laakiin hadda dan kala adoole inaad waxa weey deegaanka Soomaalida iyo dalka Ethiopia aad wax ka sheegto kuma banaana Ethiopia Soomaaliya cadow kuma aha horumarkeeda rabtaa nabadgelyada rabtaa isku soo wada duuba madaxweynaha ayaa sheegay in dadka ka hadlaya arrinta qalbi dhagax aysan ahayn dadka nabadda jecel ee Soomaaliya ay yihiin halaagi nabadiidka u booyay al-shabaab dawladda Ethiopia cadow Soomaaliya inuu fadhiyo ma ogolo Soomaaliya ay ogolaato ma cadow Ethiopia inuu mataqaanay in Ethiopia fadhiyo waliba in mataqaanay loo doodo oo cadow mataqaanay Ethiopia la og yahay oo waxa weey mataqaanaa urur Ethiopia waxaan ku rahay lagu aqoonsan yahay argagixiso xubin kamid ah ayaan u mudaharaaday maxaa mataqaanay uu nagu dhigo way taasti waa fikradii shuuciga Soomaaliya mataqaanay Ethiopia hore waan dhihi karaa umana qaadanay in yihiin shacabka Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya waxa saatir laakiin fikir al-shabaab iyo waxa saadahaya waxa ku doodaya saas ay taamisana maaha shacabka Soomaaliya maaha dadka mataqaanay Soomaalida sharafta leh walaalaha ninjaarkan hay aan ixtiraamina maaha waa fikir al-shabaab iyo fikir waxa mataqaanaa duciifa oo waxa weeyaan raqiisa oo nabadiidu soo abaabulay weeyaan ugu dambeeyna madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku soo xiray in waxa uu musha u dan ah ay ilmaha u dan yihiin taasoo ka dhigan in waxa Ethiopia u dan ah ay Soomaaliya u dan yihiin sidoo kalena waxa Soomaaliya u dan ah ay Ethiopia u dan yihiin iyo inaysan caydu banaanayn waxa uu musha dan u ah ya ilmaha dan u ah Soomaaliya wax dan u ah ba Ethiopia dan u ah Ethiopia wax dan u ah ya Soomaaliya dan u ah in la wada horumaro oo waxa weeyaan dawladda la horumaro yaa muhiim ah oo waxa weey taqaan nabadgelyada Soomaaliya waxay doon tahay Ethiopia nabadgelyada Ethiopia waxay doon tahay nabadgelyada waxaan ku rahay Soomaaliya waxa weeyaan labada shacabna waa laba shacab oo walaalaha uqood in la isku dhaxgeliyana ma fiicna adiga shacabka Soomaaliya qad Ethiopia jooga Soomaaliya bari u baahan intay ninka jooga waxa weey waxaan ku rahay Soomaaliyana bari Ethiopia ma taqaantay waxa la yiri abalada afxumadii nabadii ka geeyay oraasoo xaq haga qaban mayso marka afxumadana ma taqaana ma fiicna shacabka Soomaaliya Ethiopia waa dad walaala aflagaadaduna ma fiicna annagana wayna taabanaysaa oo Soomaaliya ku hadlayna Ethiopia maanta dhan maxaa ku raacataa waxa weeye marka la leeyahay jaar bay Ethiopia iyo Soomaaliya horta waxa jaarkaana waa deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliya taana dii hal ogaado waxa weeye maxaan ku raacayaa laga xishoodo aflagaadooyinka xun ee colaada keenay ee ma taqaana nabadgelyada keenay colaada waxba kaga qabaneen ma fiicna waa la isku baahan yahay labana kala maarmi karo Ethiopia iyo Soomaaliya shacabkeedu waa la isku baahan waa xaqiiqo la isku baahan ka Muqdisho jooga bari ma taqaana aad sabayman ka soo jooga bari ma taqaana Muqdisho tagi waa dad walaalo isku baahan laba kala maarmayo ee maxaan ku raacayaa dhibaatooyinka waxa keenaya maxaan ku raacayaa la iska daayo
xaqada lagu soo dhawaayo tooshitirka la iska daayo oo toos la isku abara codii israbtay laakiin yaa la isku samarmarino dee anaga ixtiraam baan idinka mudanayna ixtiraama waxa weeye maxaan ku raaynaad waxa weeyaan yani geed quraan shalay la garaaca ma aha in geed quraan shalay la garaaca ma aha ninka maanta waxa weeyaan ka xumaanaya hal shakhsi ha ka xumaado dhibaatada Soomaaliya haysataa